هذه وصبح ونأكسري على كانت سلامة دaan ku sugannahay waa jidka Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho waa meelaha ay sida badan qaraxyada Muqdisho ka dhacaan وصبح ونأكسري على كانت سلامة ciidamada bilayska ee gobolka Banaadir iyo kuwa Amisom ayaa saaka ka wada hawlgallo la xiriira dhinaca ammaanka هسيحن سوتشيدو سويو فوجيغنو سوماليدي ميدوندو سحكي بحيو سماتي سوماليدي ميدوندو سحكي بحيو سماتي إلا بسحبو هسيحن إبت سيدا هسيحن هسيحن سوتشيدو سويو فوجيغنو inta badan ciidamada bilayska ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sameeyaan hawlgalladaas kadib markii ay qaraxyo ka dhacaan magaalada Muqdisho iyadoo looga baahan yahay koortagyo badan oo ay sameeyaan inta uu qaraxu dhicin hase yeeshee in baawur aan la dhigin baawurkii wax iibsanayo meelaha ganacsiga wax ka iibsanayo markuu iibsado oo ka dhaqaaqo mid la iska dhigayo looga tagayo magaalo looga soo danaysanayo waa la diiday sharciga ka soo baxay marka hawshaas waa lagu guuleysay haddana waa soconaysaa dadkiina waa soo fahmaya amar dawladda ka soo baxay ayaa ku shaqaynaynaa marka dadweynaha waxaa ka codsanaya ganacsatada dadka hareerihiis ku ganacsato in ay noo soo sheegaan ama ay la dagaalamaan gaari ayna aqoonin oo meesha la iska dhigayo looga tagayo marka waa mahadsantiin adinkana waa mahadsantiin xaafada Amisomta qaybta bilayska iyaduna waxa jirtay in hawlgalka ay la fulinayaan bal iyagana ka waran booliska oo dhan qaybta guud qaybta nabadgelyada wadooyinka booliska oo dhan hawlgalka waa lagu jiraa Amisom boolis kulli hawlgalka waa lagu jiraa wax ka reeban male hawshan aad u socotaa waa arkaysaa waa gaarkeena taagan laamiga taagan saraakiisha booliska oo dhan janalku waa la wada taagan yahay hawl baa diyaar loo yahay waan gartay korneyl laakiin badana waxa dawladda lagu dhaleelaa in markay qarax u dhaco kaliya ay sameeyaan hawlgalladan maxaa mar walba si joogto ah loo sameeyaa hawlgalkan waa soconayaa joogto waana la dadaalayaa in badan habeenay maalin waa sida soo jeedo dadaalno ayaan ku qasbanahay waana waajibaadka ciidanka Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere Star TV magaalada Muqdisho